maanta oo ay ku beegneyd maalintii shanaad ee ololaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa waxaa si aad iyo aad looga dareemayaa guud ahaan magaalada madaxda gobolka Daadmareedh ee Oodweyne. Taageerayaasha xisbiga wadani ayaa guud ahaan magaalada gudaheeda ka dhigay isu soo baxyo oo aan hore loo arag, taas oo ay ku muujinayaan cududooda taageero. Iyagoo ololaya astaamaha iyo calanka guduudan ee xisbiga ayaa waxa ay socod dheer ku soo mareen jidadka dhaadheer ee magaalada Oodweyne. Gaardi iyo goclo kadib waxa ay taageerayaashu isugu soo biyo shubteen xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee ku leeyahay magaalada Oodweyne, waxaana madasha hadalla ka soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolka Daadmareedh Cabdiraxmaan Cali Diiriye, duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse, Cuqaal, Salaadiin iyo taageerayaal kala duwan, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Daadmareedh, gaar ahaan degmada Oodweyne ee u heeganka u soo jeeday ilaa iyo haddana midowda u taagan, rabana inay codkooda, muruqooda iyo maalkoodaba u huraan xisbiga wadani. ayaan iyagana mar labaad mahad ballaaran u soo jeedinaya. wadada Soomaaliland baa wada socdaa. dhalinyarada Soomaaliland maanta waxay u isbedel doonka khayrka qaba dadka codeynaya waa haweenka iyo dhalinyarada. sicir barar bayna naafeeyay lacagtii abaaraha ku darteen $1 xagee ka dhacday? waa ta kaararkiina lagu iibsanay kaararkiina. nin qol madow ka hadlaya uu ku hadlayo afreer, waxaan leeyahay ninkaas wuxuu sheeganayana mu ahayn, caaqilo ma ahayn. xirsi ismaanna wax gool lagu qaado ka weyn. kaarkii la ilaashada iska ilaali kulmiye waa ninka ku ololeynaya. waxaan qabtay wadooyin, waxaan sameeyey maxay ahayd toy darajada ciidankaa bixiyey. waar intaasi miyay jirtaa? intaba waxa bixiyey oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inay berigii kulmiye uu ahaa musharaxa ahaa siilaanyo dhowr jeer ay roog u dhigeen. madaxweynaha ay roogga u dhigteen maanta siyaasadda uu ka hadhay, isagoo iskii u madax bannaan buu siyaasadda ka hadhay. aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa soo maaha. wax allo wixii horumar gobolkan uu ka gaadhayna isagaynu mahaddeeda u haynaa, ilaahay ka sokow soo maaha. anugu garan mayno dee musharaxa maanta la tartamaya Cirro meeluu horumar dalka kaga sameeyo ka sheegto, ama wadda ha noqoto ama darajo ha noqotee wixii horumar dalkanu gaadhay intii kulmiye hayay ninkii ku suntana maanta waa madaxweyne oo waa joogaa, mahaddeedana waynu haynaa. waxaan u malaynayaa inay kelmaddii qurahayd ee qurahadlay bedeluu kelmiya bedeluu xisbiga la yidhaahdo wadani wuu guulaysanayaa. Soomaaliland koone ilaa koone waa wadani. Soomaaliland koone ilaa koone waa wadani. Sayid Maxamed Cumar, telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Oodweyne.